نتنياهو على صاحره markaas Axmedna la soo xiri doona waxaan doonayaa inaan u jawaabo cosoble shalayta markaad SNM iyo SDF iyo aad hayden maxay USC Ethiopia idin wado idin soo gelisay annagu Ethiopia hadda ka dalbanayna annagu Soomaalida bariga asad bedelo tolka maanta waad ka baxday waxaan ku leeyahay ku soo noqo Jubaland Faatumo Puntland waxaan leeyahay nimayahow iyo Soomaalida inteeda kale dulman oo dhanba isku tashada dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo dimuqraadi oo one man one vote la isku dooranayo raadiya bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan halkan dhowr qodob baan rabaa inaan ka sheego marka horeysa waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ma ku guuleystay doorashadii madaxweyne mar kale loo doortay waan u hambalyeeynaa boqolkiiba boqol waan u hambalyeeynaa waxa kale oo cambaaraynaya golaha wasiirada ee fariistay madaxweynaha la soo xidho taas jawaab yar baan ka bixinayaa jawaabteeduna waxa weeye Netanyahu la soo xidho markaas Axmedna la soo xiri doona waxa kale rabaa inaan ka hadlo baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye cadaalad darro ka jirta cadaalad darrada ka jirtana waxa weeye waxa jirta xubno ka soo jeeda Somaliland baarlamaanka intiisa kale galmudug ha noqoto Puntland ha noqoto Jubaland ha noqoto Hirshabelle ha noqoto waa baarlamaan dadkoodii ay soo doorteen oo si sharci ku yimid laakiin xubnaha baarlamaanka ka soo jeeda Somaliland maamulka Somaliland ka jira Hargeysa ma ayna soo dooran xubnaha halka ka jira sadarteed aan waxaan soo jeedin lahaa in la siiyo inay noqdaan xubin sharafeed laakiin ayna go'aan ku yeelan baarlamaanka sababta baarlamaankan rafaadka badan ee wadanka haysta waxa kamid ah iyaga kolba ninkii xukunka haysta inay maxay cod ka siiyaan saas waxa laga durkaya cadaaladda waxa laga durkaya xukunka waxa weeyaan shalayto waxay siinayeen baarlamaanka markuu farmaajo joogay asaga cod ka siinayeen xasan markii hore bariga hor joogeen asaga bay siinayeen haddana asagu bay siinayaan marka aan waxaan qabaa xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliland ka soo jeeda dadkoodii ma soo dooranin cod dadkooda ay leeyihiin kuma fadhiyaan meesha waxaan dhihi lahaa la siiyo xubin sharafeed ha ku fadhiistaan meesha codna yeelan markay Soomaaliland ay wadanka ka mid noqoto ama ay goodo ha la arko go'aan laga qaato laakiin maanta waxaan qabaa codkoodu inuu zaid ku yahay Muqdisho inuu zaid ku yahay baarlamaanka Muqdisho fadhiya inuu zaid ku yahay sababta maxay xukun sax loo gaari laayahay mindida daabkeedu kolba ninkii xilka haysto waa baarlamaankaas loo baahnaa inuu ma taqaana xubin sharafeed ka ahaado oo cod iyo xukun iyo mas'uuliyad ba yeeshay taas dhibaatada keenaysa baarlamaanka Soomaaliyeed dawaad ogtiin yaani dhibaatada haysta ogtiin marka sana ayagu kolba kii xukunka haysta ay raacayaan maamulka Soomaaliland ka jiraay ma ogolo nimankan mana doonayaan ma aynan soo dooran waxaan jeclahay marka in cadaalad darrada ka jirta baarlamaanka laga saaro nimankaas oo la siiyo xubin sharafeed kursiga ay ku buuxiyaan ilaa Soomaaliland dhan u dhacaysa ama dadkooda ay soo dooranayaan ma raba inay la mid noqdaan dadka haysta xubnaha la soo doortay dadkooda soo doorteen ismaamulada kale ka yimid inay la mid noqdaan oo la cod noqdaan oo waliba mas'uuliyadda ka sarreeya iyaga qabtaan anu ma qabo sababta waxa ay dhibaatada keenaysa waa taa mid kale dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay shirarka ay ku qabanayaan Xasan Geelle iyo ninka la yiraahdo Biixi ay ku qabanayeen magaalada Djibouti wax kale kama shiraan 35 sano oo hadda maanta la joogo 35 ka sano waxay ka shirayeen Jubaland Sanyala Puntland Sanyala Somaliland iyo maxay koonfur ay dawladdu noqdaan labadooda dadka kalena aad u gumaysataan waa intaas way waxa Djibouti loogu shirayay markaas la tagay iyo shirarkan wada hadalkii baa la soo celinta leeyahay oo dhan wax kale oo dan Soomaaliyeed ka hadlayaan ma jirto waa in ay Puntland ama Jubaland ama cid kale ay u shiraan oo Soomaaliyeed ay dhahaan maxay waxa weeye 7 u xukunaa 7 yeelaa halkeen ka maraa si aad labadiin u noqotaan maxay laba dawladood oo cid walba maxay aad ugu yeedhisaan ama Puntland ha noqoto ama Jubaland ha noqoto ama waxay Soomaalida kale ha noqotee labada qoys midna Hargeysa degan yahay midna oo Xamar degan yahay waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed inay sugin danahooda ay qaataan qabsadaan oo siday dawlad Soomaaliyeed oo federaal oo dimuqraadi ah oo one man one vote lagu soo baxo inay u helayaan dadkaas helaan dad badan oo minority la hakranaya jiro kolba hadal dhigta loogu riday taas intaas aan uga baxaya waxaan doonayaa inaan u jawaabo Cosoblow waxa weeye dadka aad ka soo jeedaadii Xasan koobo gudaheed bay ku jiraan wax koobo gudaheed ku jiraan hadee mar walba way arkayaan inay badan yihiin bay ismoodayaan koobana waa inta gudaheed leegto waa badhaxle iyo xamar inta u dhaxaysa marka inaad tiraahdo daarood waxa ka badan maxaa hayday jareer weyne ama digil iyo fidafle aad baan uga xumahay waayo jareer weynaha sheegaysa waa kuwaad maxaa hayday Hirshabelle aad ku haysatee beerahood iyo deegaankooda aad ka qaadee jananadooda aad soo xidhay ayadoo si cad loo arkay ummadda Soomaaliyeed arkayo ilaa iyo haddana cadaalad darrada aad ku haysaan nimanka leeyahay maxay digil iyo midafle deegaankooda laga bilaabo maxay afgooye
ilaa iyo dhul beeroodkood inta ugu dhanaa gobolka statetka idinkaa haysta idinkaa qabsaday oo isticmaala xoogna waad ku haysataan haddana waxaad doonaysaa inaad dad kale iyo daarood aad ku sii jeedaysaan waxaad xoog ahaanna waxaad rabtaa inaad u isticmaasho Hirshabeelle dadka maxay yihiin South West dadkeeda qalin ahaanna waad isticmaalaysaa baarlamaankooda waad isticmaalaysaa cod ku helaysaa mar kasta waxaad kaloo isticmaalaysaa maxay yihiin waxaad rabtaa inaad xooggoodii dhalinyaradooda aad ku sii jeediso dad aan waxba ka dhaxayn way og yihiin in dhulkoodii aad badi haysataan way og yihiin in aad badda khayraad ku jira iyo wixii shidaal ku jira aad haddana u xubsiimaneysaan saad ula soo bixi lahaydeen ayadana aad ku jeedaysaan dad daarood iyo dad caynkaas aad ku jeedinaysaa iyagoon u jeedinba xogtu horta dhabtu waa taa wey ma qabo in maxaa hayda marka aad dadka waxaan jirin aad ku maaweelisaan waxaa weeye waxaad la timaadeen wax la yidhaaho magac baad la timaadeen aad leediin irirkii baa hadda waxba qaban waaye haddana waxaad gaadheen inaad kolle jararweyne daarood ku jeedaysaan kolle aad ku sii jeedaysaan maxaa hayday digil ee midhifle arrintu saas maahan arrintu saas maahan raggiinan madaxda cusubla waxaad qabto xasanna uu qabaay waxaan jecel lahaa inaad wax sax oo ummadda Soomaaliyeed lagu xukumo oo cadaalad aad la timaadaan haddii kale de ummadda Soomaaliyeed way ka tashanaysaa ummadda Soomaaliyeed way ka tashanaysaa kuwaad ka dhalatay maqluudooda dulman way dulman yihiin marka waxaan rajaynayaa in mataqaana aad la timaadaan wax alla qodobka kale aan doonay inaan ka hadlo Soomaaliya maanta waxa ka jirta wax la leeyahay maxaa hayday ku dhashay ka dhashay Soomaali galbeed baad riixaysaan shalayto idinkoo Soomaali ah oo galabada gobol ee xorta Soomaaliya joogtay ayaad Soomaali galbeed baan inta tireen baad ogaadeen ayaad weerarteen waad qabsateen waad burburiseen dadka iyaga way hadlayseen beerihii waad dhacdeen jingadii waad soo rarteen haddana markii ayagoo qaxootay idin raacayna wadanka ay tageena biyaha cusub loo ku shubtaan biyaha webigaad ku rideen hadday arrintu saato Soomaali galbeed marka asaa u fuuqdeen doonaysan tasuurka inaad ka saartaan annaguna hadda waxaan noqonaynaa jawaabtii baan bixinaynaayo Soomaalida bariga Itoobiya noqonaynaayo de waan soo dhexsaageynaa dhulka Soomaaliyeed cid naga celin kartana ma jirto shalayta markaad SNM iyo SDF iyo aad hayden maxay tahay USC Itoobiya idin wado idin soo gelisay annaguna Itoobiya hadda ka dalbanayna annagoo Soomaalida bariga Itoobiya annagoo inaanu wax la qaybsano dadka Soomaaliyeed waad ku qasbantihiin taa ma diidi kartaan dariiqaad martay ma ka daba marayna haddii kale xal Soomaali ay leedahay la imaada kale waxaan rabaa inaan nin idhaaho saaxiibkay ah asad bedel waxaan ku leeyahay nabi aadan baa ilaahay wuxuu kala dardaarmay ibliis wuxuuna ku yidhi ibliis iska ilaali nabi aadanow ibliis nabi aadan buu ugu tagay jannada wuxuu yidhi nabi aadanow ma kuu sheegaa wax boqortooyo aan dhacayn iyo xukun aan damayn weliga haa buu yidhi geedkan cun buu yidhi geedkii buu cunay jannadu ilaahay ka saaray xaawiye nabi aadan hadda tolkaa maanta waad ka baxday asad bedelow tolkaa maanta waad ka baxday waxaan ku leeyahay ku soo noqo wiilashii meesha ku dhintayna dhiigooda adaa laga yaqaan ama cidii soo dirtay isagana intaasaan uga baxayaa waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaare Xamse berigii maxaa hayday Maxamed Siyaad Barre oo xukunka hayay ayaa Soomaali reer walba waa lagu diray Maxamed Siyaad Barre reer walba mar buu baxay markii uu dambeysay waxa la yiri ogaadeen baa ku haray wadankii qaxooti badanna way ku joogaan ciidamadana way ku badan yihiin waxa weeye ogaadeen hadduu damcaan u difaaco Maxamed Siyaad Barre wuu difaaci karaa oo jabaaduna markaa hadda iska soo Itaaliyaadeen waxaa nimanka gaalada waxaa jirtay in Maxamed Siyaad Barre ragga ku wareegsan gaalada markii dambe gacanta ku haysay odayga intii jugtu ku dhacdo dambe kuwaas wax loo sheegi jiray kuwaas wixii loo sheegay haddana u sheegi jireen madaxweynaha marka talaabo uu qaadi jiray waxaa lagu yidhi maynu ogaadeen baa wadanka joogay maynu u dhiibno maxay gabiyo maynu xukunka u dhiibnaa gabiyo waa xukunka loo dhiibay waxaana la doonayay ogaadeen madaxweynaha la isnacsiiyo gabiyo xukunka markii loo dhiibay markuu Hargeysa intuu Hargeysa ku maqnaa waxa lagu yiri Maxamed Siyaad Barre gabiyo waa ku inqilaabiyo markuu soo noqday ayaa ma joogay Maxamed Siyaad Barre sweer ku qabto waa kii hadda dhib ka dhacay wali dad badan waxay qabaan in arrintaas ay run ahayd laakiin ma ahayne waxa la doonayay ogaadeen ugu dambeeyay in Maxamed Siyaad Barre ayna u digigixin oo ayna difaacin saasay horta arrintaas barigaana ay ku dhacday marka hadda Xamse waxaan leeyahay Xamse xilka marka lagu dhiibay aanu meel badan ma ka eeg Xasan ujeedadiisa meel badan ma ka eeg marka midun bay noqon waxa weeye inaad Buntland isku kiin garaaco daarood ahaan isku kiin garaaco inuu Jubbaland isku kiin garaaco ayadana maxay xukuumad ahaan isku kiin garaaco labadiiba maanta way dhaceen labada sano ee soo socota marka Xasan hadduu daacadaha oo ku jeclaa oo nin xalaal oo jecel yahay ahayd oo walaalkiya oo ka doortay rag labada sano waad la dhamaysan haddaad la dhamaysanna labadii aan islaa ku gaadaya way dhaceen maanta waxaan sugaynaa wax soo socda adiguna taa ku tusaale qaado nifican baa tahay
nin daacada tahay nin cadaalada tahay hawsha hawlkar baa tahay laakiin hadee siyaasaduna geesay leedahay kolba waa dhankii loo fidiyaa marka arrintaana waxaan jeclahay in aad ayadana sideeda aad ula socoto Jubbaland nimanka la yiraahdo Khaatumo Puntland waxaan leeyahay niman yahow iyo Soomaalida inteeda kale dulman oo dhanba isku tashada dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo dimuqraadi oo one man one vote la isku dooranayo raadiya laakiin intay sidan tahay qoysasuna ay isu badbedelayaan meesha kuwa kale u soo xiibsaybanayaan oo kuwii tagay iyo kuwa lamid oo yihiin waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka inta u yeerato in wax gacan saddexaad waxay ku jirto oo sharci iyo dastuur iyo nidaam cusub loo sameeyay in lagu doodo oo laga wada hadlo oo qolo wal cidina in xeerka dhaafin 4.5kii wuu dhamaaday in 4.5kii laga sida uu ku dhamaado one man one vote kan in loo helo cadaalad sidii loo ridi lahaa ummadda Soomaaliyeed hadda maanta ma sanadkan ma shantan sano soo socotana ma ka ku xigana ma waxaan u baahanahay in beesha caalamka intay dadkan Soomaaliyeed soo farageliso beesha lixaad in la raadiyo xalkii Soomaali ay ku gaari lahayd one man one vote dastuurkoodana looga bixin lahaa dastuur qof leeyahay. Assalaamu calaykum.